assalaamu calaykum ku soo dhowaada xinjiraha jacaylka. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc muhiim ah oo ah sida loo dhiso kalsooni lamaane. Haddii aad rabto xiriir xooggan, kalsooni ku dhisan waa furaha guusha. Haddaba aynu bilowno mowduuca. Marka hore aan isweydiino, waa maxay kalsoonidu? Kalsoonidu waa dareen ku siinaya inaad aaminto qofka aad la socoto, adigoo og inuu ku ilaalin doono marka aadan ag joogin. Waa tiirka ugu weyn ee xiriir kasta ku dhisan yahay. Sida loo dhiso kalsooni. Qodobka koobaad, daacadnimo iyo runsheeg. Daacadnimadu waa udub dhexaadka kalsoonida. U sheeg lamaanahaaga runta, xitaa marka runtaasi ay adag tahay. Ha qarin waxyaabaha muhiimka ah, sababtoo ah hal khiyaano oo yar ayaa burburin karta kalsoonida muddo sano ah la dhisayay. Qodobka labaad, xushmad iyo qadarin. Isu muuji ixtiraam. Haddii aad rabto in lagu ixtiraamo, waa inaad marka hore adigu muujiso ixtiraam. Lamaanahaaga ha dhaleecayn hortiisa ama gadaashiisaba. Qiimee dareenkiisa xitaa marka aadan ku raacsanayn. Qodobka saddexaad, dhegeysi iyo faham. Dhegeysi dhab ah waa fure. Marka uu lamaanahaagu kula hadlayo, taleefanka iska daa oo si buuxda u dhegeyso. Ka fogow inaad si degdeg ah ugu jawaabto oo isku day inaad fahanto waxa uu dareemayo halkii aad diidi lahayd. Qodobka afraad, taageero iyo daryeel. Marka uu lamaanahaagu la kulmo dhibaatooyin ama riyooyin gaar uu leeyahay, u muuji taageero, ku dhiirigeli, muuji inaad garab taagan tahay. Ficil yar oo naxariis leh uu ka qiimo badan yahay hadal weyn oo macaan. Qodobka shanaad, ballanqaad iyo fulintiisa. Had iyo jeer ka dhabee ballamahaaga. Haddii aad wax u sheegto lamaanahaaga, si dhab ah u fuli. Ballamo been ah ama guuldareysiga fulinta waxay dhaawici kartaa kalsoonida waarta. Qodobka lixaad, dulqaad iyo cafis. Ma jiro qof kaamil ah. Lamaanahaaga qaladaad uu samayn karaa, adiguna sidoo kale. Baro inaad dulqaad muujiso oo aad cafis bixiso si aad u ilaaliso xiriirka. Haddaba xasuusin muhiim ah, kalsoonida oo la dhiso waa mid guul la taaban karo lagu gaadho. Waqti iyo dadaal ayay u baahan tahay, balse waa lagu guuleysan karaa. Wada shaqayn, dulqaad iyo jacayl dhab ah ayaa kuu fududayn kara inaad dhistaan xiriir waara oo ku saleysan kalsooni iyo ixtiraam. Halkan ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii maanta. Haddii aad ka heshay mowduucan, fadlan like saar, subscribe-na saar, kana mid noqo qoyska xinjiraha jacaylka. Fadlan fikirkaaga iyo su'aalahaaga ku reeb qaybta faallooyinka. Waadna ku mahadsan tahay muuqaalkan daawashadiisa.